kaasoo ah in ajaanibka ku nool gobolka Sanaag ay ka baxaan aadaana goboladoodii iyo dalkii markii hore ay ka soo shaqo tageen halka marka maanta waxaanu ka bayaaminaynaa oo ka cadeynaynaa maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii 10aad 2021 in aanu maanta u cadeyno inay dadkaasi ku diyaar garoobaan muddo 14 cisho oo ay kaga eeg tahay 24ka bisha 10aad dhammaan dadka waxaan la socodsiinaynaa mid ganacsada iyo mid muruqmaala iyo mid macallina inay dhammaantood ku diyaar garoobaan 14ka cisho 24ka bisha in ay faaruqiyaan gobolka Sanaag dadkaas waxaan leenahay cid allaale ciday ganacsi ka dhaxaysay ee reer Sanaaga inay ganacsigooda kala gurtaan deyntooda kala gurtaan in dadka la fududeeyo la diyaar gareeyo si ay u bixi lahaayeen oo u tagi lahaayeen ay kala shaqeeyaan dadweynaha reer Sanaag waayo dadkaasi ganacsi qayb baa ku jirta qaybta ganacsi ku jirta dad badan bay wax ka dhaxeeyaan ama qaar ay guriga kaga jiraan ama qaar ay lacag kala amahdeen ama qaar ay kambaniyo wada leeyihiin oo shuraaka yihiin waxaan leenahay dadkaasi way baxayaan 24ka bisha cid kasta ay wax isku leeyihiin waa in ay diyaar gareeyaan oo ay u fududeeyaan sida ay u bixi lahaayeen anaga xukuumad ahaan 24ka bisha maanta ay dhamaato cid aan u ogolaanayna inay sii joogto gobolka Sanaag ma jirto oo aan ahayn muwaadin reer Soomaaliland muwaadiniinta waxaan leenahay ka urursada ka diyaar garooba muddada aanu idin siinay iyo waqtigeedu ka lumin chance fiican baad haysataan chance-ka fiican ku diyaar garooba hantidiina ku urursada awal barnimo soo shaqo tagay oo ganacsataa baad haydeen alaabtiina xidhxidhi diyaar garooba waana amar dawladeed oo amar heer qarana oo ka soo fulay xukuumadda sare anagoo gobol ahaanna inaanu fulino ayaa xukuumadda xaq nagu leedahay